yaal maanta waxaan u hayaa video kale oo ku saabsan barashada luuqadda Ingiriiska sida kor loogu qaadi lahaa. Muuqaal kelmad wuxuu ku saabsan yahay waa wiilkan oo ka sheekeynaya sida uu ku bartay luuqadda Ingiriiska kaliya isagoo samayn jiray inuu daawan jiray filimaanta iyo TV-ga. Intaas kaliya ayuu luuqadda ku bartay. Hadda sida uga hadlayana waa arki doontaan. Markaa waxaan inaguna aan ka fahmaynaa bal stabiska iyo waxyaabaha uu isticmaalay iyo sida uu luuqadda u baran jiray. Markaa toos baynu u gelaynaa. When it comes to using movies and TV series to improve my English, I always had the mindset of consistency and quality rather than quantity. Meaning that when it comes to hadda wuxuu sheegay markay timaado barashada luuqadda ama markay timaado buu yidhi isticmaalka movieska filimaanta iyo TV-ga TV series si uu cana kor uga qaato luuqadda Ingiriiska. using movies and TV series to improve my English, I always had the mindset inta badan anigu waxaan haystay fikir ah joogtaynta consistency and quality rather than the quantity. waxaan anigu aan waday ama wuxuu inta badan aan haystay macnaha fikirka ah waditaanka ama joogtaynta and quality-ga waxaasoo tayo leh rather than the quantity. Marka loo eego number wax badan maahan laakiin muhiimadu inaad wax badan fahanto maaha laakiin inaad fahanto hal shay oo maalintaas aad barato halkaas shay aad joogtayso wax yar ba ahaadee waxaas wax tayo leh oo marka aad fahanto wax ku tara u noqdo ayaan aaminsanahay buu saasaan ku wadi jiray. Marka loo eego quantity-ga waxaan doorbidi jiray quality-ga inaan wax taro tayo leh inaan barto. consistency and quality rather than quantity. Meaning that I would focus on just watching sometimes. inta badan waxaan xooga saari jiray I will focus on just watching sometimes 20-minute episode of the sitcom. inta badan waxaan xooga saari jiray inaan daawado 20 daqiiqo kaliya episode of sitcom 20 daqiiqo kaliyana ku bixiyo daawashada filimka ama series movieskaas waxaasna ku bixiyo A 20-minute episode of a sitcom or even a 5 or 10-minute clip. xataa waxaa laga yaabaa ka dhigo 5 daqiiqo iyo 10 daqiiqo clip ah intaas inaan daawado maalin walba So it was small bits, but I did that frequently. I tried to do it daily back then, and also the mindset or even a 5 or 10-minute clip. So it was small bit. So it was small bits, but I did that frequently. I tried to do it daily back then. aad bay u yarayd. It was small bits, waxyaabo yar bay ahayd. But laakiin tan waa mid aan sameynayay oo mar walba frequently waa wax mar walba aan si u samayn jiray joogtaan u samayn jiray. I tried to do it daily back then. maalin walba waan samayn jiray. waxaan ku bixin jiray 20 daqiiqo u badnaan 5 daqiiqo mararka qaar 10 daqiiqo waxaan maalin walba samayn jiray ayay ahayd. But I did that frequently. I tried to do it daily back then. And also the mindset was every time I sat down to deliberately work with a movie or TV show clip, my mindset was I gotta learn. I got daily back then. And also the mindset was marka aniga waxaan haysaa buu fikir ah every time I sat down to deliberately work mar walba inaan u fadhiisanayo deliberately taan turxaan lahayn inaan work inaan waxaas u qabto mar walba aan every time I sat down to deliberately work with a movie or TV show clip daawado oo aan la jiro ama aan fiirso TV-ga ama movieska filimaanta my mindset was got to learn. aniga fikirkayguna iyo hadafkayguna wuxuu ahaa inaan wax barto. Got to learn inaan wax barto wax ka barto ayahay. My mindset was I gotta learn. I gotta extract at least one I got to extract at least one thing from this. waxa aan ka bartay ama aan ka fahmay intaad 10 daqiiqo waqtiga uu sheegayo at least u yaraan one thing from this hal shay ama hal word ama hal sentence waa inaan wax uun ka barto muhiim maaha inaan boqolaal tobanaan shay barto laakiin inaan hal wax aan ka barto ayaa muhiim yahay. back then. And also the mindset was every time I sat down
to deliberately work with a movie or TV show clip, my mindset was I gotta learn, I gotta extract at least one thing from this. I gotta learn one thing at least, a new word or a new way or how to pronounce something that I didn't know how to pronounce before, or a new way of saying something in this or that situation. I gotta extract something. So that was my mindset, always extracting at least one thing from that clip that I was working with. And being pronounced before, or a new way of saying something. I gotta learn one thing at least, a new word. وحلي يعني waa inaan ka barto ujeedkaygu waxaa inaan ka barto one thing hal shay at least a new way hal kelmad oo cusub inaan ka barto or ama new way of Or a new way or how to pronounce something. new way of how to pronounce sida aad ku dhawaaqi lahayd something hal wax ama shay that I didn't know how to pronounce before kelmad aan marka hore aanan garanayn sida loogu dhawaaqo inaan waqtigaas inaan barto or ama new way of That I didn't know how to pronounce before, or a new way of saying something. ama hab kale oo cusub oo aan u oranayo yani kelmad aan u oranayo of saying something in this or that situation I got to extract something yani waa inaan wax uun ka fahmo kelmad dhawaaqeeda ha noqoto kelmad qoraalkeyga ha noqoto kelmad igu cusub oon fahma ha noqoto hadal kale oon hore u maqal ha noqoto yani waa inaan wax uun ka fahmo at least one thing or one way of pronouncing new thing or ama new word or ama hab cusub oo wax loogu dhawaaqo ina at least waa inaan wax uun ka fahmo ujeedkaygu taas ayuu habuli this or that situation. I gotta extract something. So that was my mindset, always extracting at least one thing from that clip that I was working with. And being realistic. That's why it's important for you to be consistent. waa inaad ahaato be realistic yani noqo qof macnaha ujeedkiisu cad yahay realistic xaqiiqa ah that's why waa sababta it is important and muhiim u tahay for you to be consistent because it's a better for you to do it yani wax ku leeyahay inaad waxaaga xaqiiqa aad ka dhigto oo wax xaqiiqa oo realistic aad ka dhigtahay muhiim taas waa sababta muhiim u tahay inaad shayga wado oo mataqaana aanad joojin oo aad joogtayso because it is a better for you to do it aad bin ugu wanaagsan tahay adiga inaad Because it's better for you to do it every day and just focus on one thing that you'll aad bay muhiim u tahay inaad maalin walba samaysto every day and just focus on the one thing that you learn per day hal maalin hal kelmadna ha noqoto yani inaad xooga saarto maalin walba aad wado maalin walba kelmad cusub aad barato ayaa muhiim aad muhiim u ah every day and just focus on one thing that you learn per day earn per day, then maybe trying to memorize 10 words. marka loo eego buu ku leeyahay la barbar dhigo inaad xifdido yani 20 eri ama 10 eri hal fadhi hal mar inaad tiraahdo 20 kelmadood baan xifdiyaa 30 vocabularies aan xifdiyaa 30 ama 20 wax ka badan bal hal fadhi hal mar aan ku xifdiyaa taas waa laga fiican yahay buu leeyahay macnaha in one sitting or 20 words in one sitting. That's not realistic and you're just setting yourself up. taas markaa waxa maahan yani wax realistic wax dhaba maahan and you are just setting yourself up for the disappointment yani naftaada waad dhibaysaa yani waxaad keenaysaa yani waxaad ka dhigaysaa mid ku niyad jabta oo hadhow ka caajisa oo aan hawshaasi wadi karin laakiin waxa realistic waxa weeyaan ku leeyahay one day baro kelmad cusub taasna u bedeli wax yani xaqiiqa ah oo realistic ah that is not realistic and you are just setting yourself up for the disappointment For disappointment. Let's go for it, Thiago. Let us in on your big secrets. So yeah, this is my personal method for working with movies and TV series. And while it is simple, I found. Let's go for it, Thiago. Let us in on your big secrets. So yeah, this is my personal method for working with movies and TV series. And while it is simple, I found it quite effective. It's a series of steps, and let me introduce step one. Yeah, this is my personal method for working with movies and TV series. hadda wuxuu ku yiri wax noo sheegtaa Thiago wiil wax noo sheegtaa yani adiga sirta had yani ku baratay qaabkaad ku baratay noo sheeg marka wuxuu leeyahay waan idin wadaagayaa hal personal secret ban idin wadaagayaa qaabka aan yani aan u daawan jiray aan luqada u bartay stepskii aan u maray ayaan idin sheegayaa while it is simple aad bay noo fududahay and I found it quite effective mid waxtar leh
And while it is simple, I found it quite effective. It's a series of steps, and let me introduce step one. First of all, have an idea already of what the context is, what the situation is about. And you can do that in one line, just a one line sentence to tell yourself what that clip is about. Just to give an example, you start watching it and then you tell yourself or you realize that, okay, in this clip, a lawyer is defending 3 young people who did something wrong. You see, it's a one line sentence that describes the situation, that contextualizes it already. Or in this clip, there are 6 friends at a coffee shop talking about their job. So yeah, that's important to do. So you can do that as you watch the clip. Yeah, for me nowadays, it kind of happens even intuitively. I don't even think about it. hadda wuxuu leeyahay markaan doonayo in nala wadaago sirtiisa qaabka uu isticmaali jiray inuu baranayo luqadda ingiriiska waxa weeye wuxuu yidhi marka aan bilaabayo aan wax daawanayo ama fiidiyowga ama tv-ga ama filimkaan daawanayo marka koobaad waxaan fahmi jiray wuxuu ku saabsan yahay waxaan clipka aan daawanayo wuxuu ku saabsan yahay marka koobaad one line baan u baahanahay inaan ku fahmo waxa ku saabsan yahay tusaalada wuxuu soo qaatay wuxuu leeyahay kaba soo qaad meel waxaa iskugu yimid 6 wiil oo saaxiiba oo meel soo fadhiistay kana hadlaya shaqooyinkooda marka qodobka koobaad aan fahmay wuxuu leeyahay inay 4 wiil yihiin waxna ka hadlayaan oo yahay shaqooyinkooda saa markaan u fahmo wixii intaa ka dambaysa waxaan doonayaa dambe inaan yacnihii aan urursado weediska la xidhiidha at that point yani waqtigaas waxyaabaha la isticmaalayaan vocabularies-ka isticmaalayaan ereyada isticmaalayaan hadalka isticmaalayaan